madaxda xisbiga wadani laantiisa Finland ayaa shir jaraa'id ku qabatay caasimadda Helsinki. Shirkan jaraa'id oo ay kaga warrameen xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan. Waxay sidoo kale gaashaanka u daruureen eedo musharaxa wadani maalmahan loo soo jeediyey. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha laanta Turku Jamaal Cabdillaahi iyo Deeqa Aadan waxaana ka mid ah hadaladoodii. sida bulshada Soomaaliland wada og tahay arintii sicir bararku ee dhibaateed xukuumaddu ay u xal weyday ay wali meesheedii taagan tahay. waxaynu ognahay aynu maalmahan dambe in badan aynu ka maqlaynay in xisb xaakinka Soomaaliland wasiiradiisa ay hawada iyo meedhiyada isku marinayaan hadallo xanaf leh oo ay qaar ka mid ah xisb xaakinku ay taageerayaashooda hortooda ka qirteen in uu jiro maamul xumo dawladda kulmiye iyo habaxsan waxaanu leenahay xisb xaakinka ilaahay haydigu astiro dalka dadka intaan idinla wareegayno bulshadii Soomaaliland way dareentay jaaliyada Soomaaliland Cabdiraxmaan markuu joogay hormuud buu ka ahaa anna waxaan ahaa dhalinyaradii markaa ka shaqaynaysay ee seminaarada loo diraayay ee wadamadii markaa ictiraaf raadinta Soomaaliland lagu bilaabay waxay jaaliyada qura ee reer Soomaaliland iska daayo Soomaaliya oo dhan wax laga weydiiyay ahayd markaa ayay ahayd dhalinyaradii markaa seminaarada loo diraayay ee wadamadii markaa raadinayay gooniisu taaga ay East Timor ka mid tahay ay South Sudan ka mid tahay wadamadaas oo imika waa wax lagu farxo inay istiqlaalkoodii qaateen oo inay gooniisu taageedu heleen Cabdiraxmaan hormuud buu ka ahaa inuu bilaabo in ixtiraaf raadida inuu jaaliyada sharafteeda iyo sumcadeeda ilaaliyo hormuud buu ka ahaa marka waxaan leeyahay shakhsiyaadkii maalintii dhaweed miidyada ka hadlayay kulay annagii dhalinyaradii baa joognay dhalinyaradii joogay ee xogagaalka u ahaa baanu ahayn ilaa 98kii dhanka kale waxaa isaguna halkaasi dhaliilo isbarkan halkaasi uga soo jeediyey xisbiga talada haya ee kulmiye gudoomiyaha xisbiga wadani laantiisa Finland Isxaaq Cabdi Guuleed markaad aragto xukuumad kala socota oo iyadii miidiyaha halka iyadu dalka wuxuu qaban lahayd oo dalka ka talin lahayd iyadu miidiyaha isku weerarsan wasiiradii oo aragtaan inay tamashle ku maqan yihiin halka shacabkii oo tabaalaysan uga shaqayn lahaayeen oo dhamaantood aad moodo xafiisadoodii ay faarq yihiin markaad la arko markaad aragto musuqmaasuqa baahsan ee wadanka ka jira ee xadhkaha goostay yaan cid xakameynaysaa jirin markaad aragto wareegtooyinka ka soo baxaya madaxtooyada ee isburinayaan waxyaalahaas oo dhan markaad aragto waxay ku cadeynaysaa in xukuumadda talada haysa ee kulmiye iyo xisbul xaakimkeeduba ay u baahan tahay in dalka laga badbaadiyo Aadan Yuusuf Ismaan Home Cable TV Helsinki